wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dib ugu biirtay ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya oo ay ka maqneed muddo ku dhow 28 sano. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane Siciid Xuseen Ciid iyo agaasimaha guud ee ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya ayaa maanta kala sixday heshiis 28 sano kadib ay mar kale ku midoobeen ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya. kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. ugu horreyntii madasha ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Siciid Xuseen Ciid waxa uu ka hadlay muhiimadda iyo waliba dib u noqoshada ay ugu midoobayaan mar kale ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya. bismillaahi raxiim madaxa agaasimaha guud ee ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya Mr. Stephen madaxda kala duwan ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya guddiga beeraha baarlamaanka Soomaaliya hay'adda FAO agaasimayaasha kala duwan wasaaradda beeraha iskaashatooyinka guddiyada beeraha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta halkaan isugu nimid munaasabadda Soomaaliya oo dib ugu biiraysa si official ah ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya. munaasabadaas ayuuna u yimid agaasimaha guud ee ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya. ururkan oo la aasaasay 62 Soomaaliya waxay ka ahayd xubin buuxda dalkan wuxuu ka qaban jiray adeegyo aad iyo aad u fara badan shimbiraha iyo Kenya iyo waxyaabo kale fara badan buu la diriiri jiray xarumo weyn buu dalkeena ku lahaa. waxaynu ka maqanahay 28 sano ayaynu ka maqnayn shirkii u dambeeyay oo ka dhacay Addis Ababa ururka ku shiray ayaan ku marti qaaday dib baanu u codsanay inaan ku biirno maantana waxaan u joognaa munaasabadii sifo rasmi ah oo u yimid agaasimaha guud ee ururka Bariga Afrika Soomaaliya dib ugu biirayso ururka Bariga Afrika ee la dagaalanka Kenya oo xaruntiisu tahay Addis Ababa oo ay xubno ka yihiin wadamada Bariga Afrika oo dhan. waxaan xaq u yeelanaynaa haddaan ku biirnay si sharci ah inaanu helno adeegyadii ururka uu qabto wadamada xubnaha ka ah oo isugu jira nooc walba si looga hortago musiibada Kenya. waa ogtiin hadda wadankeena inay dhibaato badan ku hayso inay gobollo badan hadda ay soo weeraray inuu xuduudaha dhan naga soo galay Kenya oo dhibaato weyn ku ah daaqa beeraha iyo deegaanka intaba. marka fursad aad iyo aad muhiim ah bay noo tahay sharaf bay noo tahay Soomaaliya inay dib ugu soo noqotay ururkaas urur muhiim ah urur taariikhi ah shaqooyin aad iyo aad u badan ka qabta wadamadaas. Cabdiraxmaan Saciid Xasan Talante Galmudug TV.